conflict management maareyn in la dhaho hada xalku waa wax markaa la xalinayo oo la isku hayo laakiin maareyntu waxa weeye in laga fikiro xal inta loo keeno xalka la dhaqan geliyo laga digtoonaado si uu u soo noqon khilaafkaas mar dambe uusan soo qaadan marka waxay noqonaysaa in mashaariic lagu kabo nidaamyo dawladeed macnaha la dhex geliyo lagu kabo marka maareynta khilaafaadka الموضوع إنه قرآن في يريري هاي لكن أنا قاعد أقول maareynta khilaafaadku waa nidaam ama waa hanaan isku xiran kaasoo higsanaya sidii loo heli lahaa natiijo ay ku wada qanacsan yihiin dhinacyada khilaafku ka dhaxeeyo natiijo wax ku oola ay ku wada qanacsan yihiin labada daraf ee khilaafku ka dhaxeeyo waa in la keeno natiijo ku gacan siisa hay'adaha bulshada dawladda ama shirkadaha inay u hawlgalaan si firfircoon isla markaana ay u gaaraan goolasha loo asaasay haday dawlad tahay waa inay dhibaatada loo xalinayaa sidii loo gaari lahaa ahdaaftii ama gooliska markaa loo asaasay ujeedada xalinta khilaafaadku waxaa ka bilaabataa in hoos loo dhigo dhicidda khilaafyada curyaamiyayaasha ah shalay waxaan soo qaadanay khilaafku inuu laba yahay khilaaf wax burburiya iyo khilaaf wax dhisa marka khilaafyada curyaamiyaasha ah macnaha waxa weeyaan ayay ujeedadu tahay in xal loo isla markaana la faafiyo falsafada ah in khilaaf walba oo dhaca la xalin karo si hufan oo turxaan la-aan ah isla markaana aan dhinacna ku ahayn guuldarro ama jab oo ah guulayso aan guulaystay ah hab lagu wada qanacsan mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan xalinta khilaafaadka waa dabeecadda ka hortagga in macnaha khilaafka laga hortago tani waa mid laga rabo in hogaamiyaashu ay mar walba u taagaan inay abuuraan jawi aan dhiirigelin khilaafyada curyaamiyaasha ah khilaafka in laga hortago in la abuuro jawigiisi ayaa muhim isla markaana kor u qaada xalal wada guulaysi ah oo win-win solution la yidhaahdo in la wada guulaysta kor loo qaado okay marka tallaabooyinka loo maro xalinta khilaafaadka waa badan yihiin laakiin kuwan baan ka qaadanayna marka raban wax la xaliyo ko waa in la fahmaa sababta ka dambeysa khilaafka kan wax la xaliyo ko sababaha dhaliya khilaafka badanaa waxay kusoo ururayaan dhowr sababood midkood xogta ama warbixinta dadku inay inta badan waxaa dhacda in hadal ama arrin keliya in qofba si u fahmo si u gaara u fahmo hadal waana tay soomaalida hore ugu mahmaahday hadal waa mergi ama hadal nin si u yiri nina si u qaaday marka xog ama information ayuu ka bilaaban karaa waxyaalaha sababta khaldan ama si khaldan loo fahmay xog saxan hadday rabto si khaldan loo qaabka marka process waxaa dhacda in la isku qabto qaabka hawl loo qabanayo iyadoo hadafka aan la isku diiday tii hore muxuu ahaa hadal si khaldan loo fahmay tanna waa qaabkii ayaan isku diidayna hawshaan ay rabnaa inaynu wada qabano laakiin waxaan leenahay sidaanay ku habboon tahay iyo kuma habboona sidaanay ku habboon tahay ahdaafta yoolka aynu wada leenahay aniga iyo adigu isku dan iyo ujeedan leenahay laakiin waxaa la rabaa ujeedada sidaan ku gaarina inaynu isku nahay mararka qaarkood marar badan waxaa dhacaysa in ujeedooyinkaba la isku diidan yahay oo qof walba uu higsanayo yool iyo ajendayaal u gaara ama inagoo kala ajenda duwan baanu leenahay ama inagoo hal ajenda lebanu process isku qabanaya waxaan rabnaa Jubbaland barwaaqo noqota muxuu ahaa nabad noqota laisdhex maro shaqo awood intii loo sameeyo ganacsi la sameeyo horumar gaarta laakiin see ku gaaraya dad baa waxay aaminsan yihiin maamulka waa in la dumiya midka waa in la sameeya mid baa aamusan waxayna haysan aan ku midjidno isaga ku gaarno war yani waa isku meel baan laakiin baa khaldan values waxyaalaha aan la aaminsan yahay oo muxuu ahaa qiyamka ah
mabaadi'da iyo habdhaqanka oo kala duwanna waxay sababaan khilaafyo oogma haddii qiyamku kala duwan yahay dadka iyo fakarku way kala duwanaanaysaa ama habdhaqanka abuurta oo caadi ah qofka kale ilaahay u abuuray si gooni oo aniga iyo adigu isku dabeecad mani isku habdhaqan mani isku si waxa ma fahano taa marka waxay keentaa qaabka qofnimo iyo shakhsiyadda qofeed ayaa waxay keentaa in dadku u kala duwanaadaan qaab hadalka dabeecadaha iyo qaab shakhsiyeedka taasoo marar badan sababta khilaaf qofeed sababta ama isku dhac laba qof isku dhac waxaan rabnaa halkan inaan ku qaadano xalinta in la dejiyo istaraatiijiyo codsi si loo xaliyo khilaaf qorshahan waxa uu kaa caawinayaa inaad gaarto xal dhab ah waxaana ka mid ah waxa weeyaan waa 5 waxyaalood si ah oo inaga waxaan kasoo dheeganay casharadan dib u heshiisiinta ee la bixiyo laakiin marka inaga fiiriso waxa laga yaabaa inuu kala duwanaan karo marka aan fiirino hab la yiraahdo domination strategy oo ah waa qorshe qasab ka dhigaya in dhinacyada ishaya mid ka mid ah uu afkaartiisa muhiim tahay in la qaato adiga iyo adaa ishaya ujeedada aad washayseen laakiin adiga lagu qanciyaa waxaad sheegaysaa fikirkayga saxda u dhow kaas la qaadaya kaas waa lagu xaliyaa accommodation hab la yiraahdo waa qorshe tanaasul ku dhisan oo labada garab ishaya mid ka mid ah uu tanaasul waa nabadoon cabdi colo cumar sugulle waxaan ka socdaa degmada Kismaayo waxaana ka mid ahay oday dhaqameedyada maamul goboleedka oday dhaqameedyada ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland waxaan maantay ka faa'iidnay shalay maantay bari ayuu noo soo xirmin doonaa kulankan waxaan noo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka aad baan ugu mahad celinaynaa waxaynu ka baranay casharo aad u wanaagsan shalay wuxuu ku saabsanaa casharadii aan qaadanay khilaafaadka noocyada khilaafaadka ay u kala baxaan baanu shalay dhan wada falaqeynaynay maantana waxaynu iskugu nimid qaybtii labaad oo ku salaysan nabadda oo iyadana maanta falaqeynteedii iyo qaabkii nabadda loo dhaqangelin lahaa iyo baynu maanta nabadda togan iyo midda taban baynu maanta hawsheedii ku jirnay nabadoon xuseen aadan cabdullaahi shalay iyo maanta iyo berri waxaa noo qabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaaleysinka aqoon kororsi oo khilaaf xallin iyo khilaafaadka sida loo xalliyo oo aqoon kororsi ah oo 3 beri ah bay noo qabatay wax badan baan ka faa'iidnay oo aad iyo aad aan uga faa'iidnay annagoo ah odayaasha dhaqanka Jubbaland oo ka kooban 40 ayay noo qabatay aad baan ugu mahadsan tahay waxaan rabnaa insha Allah haddii Ilaahay yiraaho aqoon kororsi inay noo sii wado wasaaradda arrimaha gudaha oo aad noogu sii wado sababtoo ay tahay wax badan baan kala faa'iideynaa wax badan oo annaga nagu jiro iyo wax badan oo ayada maartay ay wado yaan taan isku darsanno ay bulshada ay anfacaysaa maalin kasta waan ku dhex jirnaa barnaamijkan khilaafaadka ah ee xalinta ay qabatay wasaaradda arrimaha gudaha ku saabsan khilaafka iyo dib u heshiisiinta insha Allah shalay khilaaf baanu ka hadlaynay waa tababar abaan la siinayay marka maantana sidii khilaafkaas loo yaraan lahaa ama loo xalin lahaa baan maantana turuusa برهنا إن شاء الله الكريم وسوق بجبيننا وزارة أرماء جودها خير الله سيو مركز سد حدث بريو سمينار أوريال جارية أورياشا عبد الغمادك جبلان أو أفرت مياه إن شاء الله نوقف برهنا وسوق بجبوه